geedka ugu halista badan adduunka dushiisa geed argagax badan oo dhulka ku yaalay muddo aan dhoweyn tan iyo maalintii uu bani aadamku dhulka yimid si uu u noqdo geedka ugu halista badan uguna yaabka badan adduunka oo dhan waxaa la helay ka hor intaana la qorin taariikhda waa mid leh awood argagax badan awoodda shifada wuxuu ku koray dhiig bani aadam oo ku daatay dhulka dhiiggii haabiil markii uu dilay walaalkii qaabiil waxaa lagu qiyaasay cimrigiisa 50 milyan oo sano haddii aad garaacdo geedkan waxaa ka qumanaya xinjiro dhiig ah waaba iyadoo ka ooyeysa wixii ay sameeyeen ilmo aadan waa geedka dhiigga walaalaha geedkan wuxuu ku yaal jasiiradda ugu quruxda badan adduunka jasiiradda suqatra ee ku taal dalka yemen waa geed naadir ku ah adduunka mana jiro meel laga helo dhulkaan ka ahayn jasiiradda suqatra mararka qaar waxaa loogu yeeraa geedka ibliis sababtoo ah ibliis waa kii isku diray haabiil iyo qaabiil caleemihiisa waa mid loo adeegsado keenidda iyo u yeedhidda jinka waxaa la dhahaa haddii aad ag istaagto geedkan ama aad isticmaasho caleemihiisa kuna akhriso qaar ka mida sixirka waxaad awood u yeelanaysaa inaad u yeedho jinka ugu awoodda badan boqortooyada jinka bal waxaad la hadli kartaa ibliis naftirkiisa ama maadada guduudan ee dhiigga u eg ee ka qubanaysa geedka waa maaddo xabag ah oo lagu magacaabo daraako maadadan u eg dhiigga haabiil ee daatay culimmadu waxay ogaadeen inay leedahay faa'iidooyin fara badan xilliyadii hore waxaa loo adeegsan jiray in lagu daaweeyo dhaawacyada halista badan iyo daaweynta xanuunnada ku dhaca maqaarka ciddii ugu horraysay ee daaha ka fayday faa'iidooyinkeeda ka hor daaweynta casriga waa faraacinadii masar muqadas ayay ka dhigi jireen waxayna u haysteen hadiyad uga timi xag alleh waxay u isticmaali jireen dhiig joojin gaar ahaan xilliyada dagaalka geedkan wuxuu astaan u yahay dil khayr iyo shar salaam